lan siyaasadeed hor leh ayaa u bilowday madaxdii hore ee Soomaaliya iyo kuwa xiligan talada haya. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa faahfaahin inoo soo koobaya. waa bilowga loolan adag oo siyaasadeed waxaana loo cararayaa hoggaanka dalka iyo taageerada shacbiyad iyadoo xisbiyo loo marayo. waxaa la diiwaan geliyay xisbiyo ay ka muuqdaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kuwa kalena wadada ay ku soo jiraan dadkuna magacyada xisbiyada ay la baxeen kuwa aan ahayn ay ugu lamaaniyaan oo hadba waqtiga ay talada hayeen loogu yeeri jiray. waxaa loo tartamayaa haysashada siyaasiyiin magac iyo saameyn leh dhanka xisbiyada. xisbiyo horay u jiray oo uu ka mid ahaa Daljir ayaa ka mid noqday xisbi ay siyaasiyiin badan isku biirsadeen ee midowga nabadda iyo horumarka oo madaxweyne Xasan Sheekh gudoomiye ka yahay. xisbigan waxaa ku jira saaxiibo markii hore siyaasadda ku kala aragti duwanaa, maantase waxay ku midaysan yihiin halka xisbi. walow ay badan yihiin xisbiyada jira, haddana waxaa ka mid ah himilo qaran oo uu hoggaanka u hayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, waxaana ka tirsan xisbigaasi rag badan oo saaxiibo siyaasadeed la ah Shariif Sheekh Axmed. in badan oo ka mid ahna weli dalka ayay ka maqan yihiin, balse loolanka Muqdisho ka socda qaybtooda kama marna. hogaamiyaha weerarkii hoygiisa lagu qaaday sida weyn ugu caanbaxay ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, xisbiga uu kaadirka ka yahay ee Wadajir ayaa qayb ka ah baratanka. magaaladana rag taabacsan ayaa ka wada suuqgeynta siyaasadooda. Wadajir waxaa la hadal hayay inuu ku biirayo xisbiyada midoobayo, balse ma dhicin oo hadalhayn kale ayay ahayd. dusha ayaana laga eegayaa hadba dhanka ay u badan doonto. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo 2 jeer soo noqday wasiirka koowaad ayaa dhankiisa wada olole mase cadda xisbigiisa oo waxa ay dad badan la tirinayaan. Wadajir mid cusub iyo mid kale oo taabid gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir aasaasayo. madaxweynaha doorashada mar kale gelaya ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, haddii uu maalinta salaasada ku soo bixin madaxtinimada Puntland iyo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya soona noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaan labaduba la dhayeelsan karin halka ay xisbiyada ka wajahaan. madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibada la shaqeeya ee uu khayra u horeeyo ayaa iyaguna ku midaysan xisbiga Nabad iyo Nolol oo diiwaangelintiisu bilaabatay, sida uu hore u sheegay Ra'iisul Wasaare Xigeen Mahdi Guuleed. sanadkan bilowga ah ayaa la qaban doonaa hawsha ugu badan ee xisbiyada dalka. siyaasiyiin walba ee damac ugu jiro hoggaanka dalkana dadaal badan ayay bixinayaan. qaar baa isbahaysi samaysan doona oo dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda ayaa la doonayaa in la dhammeeyo diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada oo ay ula imaanayaan kumanaanka qof ee taageersan qorshahooda siyaasadeed oo degsan xarumaha Muqdisho iyo gobolada dalka, iyo in kale oo shuruudaha qayb ka noqon doonta oo la rumaysan yahay in xisbiyada qaar ku adkaan doonto, balse ay dhici doonto kuwa midooba. waa waqti hore in la sheego sida uu tartanka yahay, balse waa la wada hordhacaya marka la daawado waqtiga harsan iyo hadallada la isku marinayo warbaahinta. madaxda dawladda ee la aaminsan yahay inay yeesheen isfaham siyaasadeed ayaa ku dadaalaya sida ay taageero dadweyne ku hanan lahaayeen siyaasiyiinta, ayna ku dhaliilaan habka ay wax u mucaaradaan. siyaasiyiintuna waa kuwa raba sidoo kale hanasho dadweyne oo madaxda ayay ku dhaliilaan caburin siyaasadeed. Nabad iyo Nolol oo loo yaqaano madaxda talada haya haatan midowga nabadda iyo horumarka oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh u horeeyo, himilo qaran oo Shariif Sheekh Axmed horkacayo, Wadajir oo weli isha lagu hayo isbeddelka ku imaan kara midka ay la soo shirtagi doonaan Taabid Cabdi iyo Cumar Cabdirashiid ayaa uu dhexmari doonaa tartanka ugu adag. waa dalka oo nabad ahaada iyo xisbiyada tartamaya oo aan mara ka noqonnaa.